asigoo khudbad ka jeedinayay shirka garsoorka dalka oo muddo 2 maalmood ah ka socday magaalada Muqdisho ayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ballan qaaday inay wax ka qabanayaan cabashooyinka ka taagan garsoorka dalka asigoo sidoo kale ka dalbaday garsoorayaasha dalka inay raaligelin ka bixiyaan qaladaadkii ka dhacay garsoorka. aniga aan iska bilaabo systemkeena qaabkeena dawliga ee cadaaladda ma fadhiyo dib badan baa laga sheegtaa waa la xantaa macnaheedu waxay tahay dad badan oo Soomaaliyeed yaa wax ka soo gaareen oo aaminsan si khaldan inuu xukun u dhacay xuquuqdoodii la duudsiiyay dadkaasi anu ma aqaano waxa amaanadaas loo dhiibtay garsoorayaasha iyaga Ilaahay hortagaya waqtigeeda markay timaado laakiin aniga madaxweyne ahaan cudurdaar yaan ka sameeynayaa waana ka raali gelinayaa dadkaas dibka runtii ka soo gaaray systemka dawliga ah garsoorayaasha naftigooda waxa la rabaa inay cudurdaar ka sameeyaan oo Ilaahay u noqdaan haday sixi karaan dib intee u noqdaan ay saxaan wixii khalad ah oo ka dhacay markaasi waxaan helaynaa nabad baan helaynaa marka haddii aan la qiran wixii dhacay iyo dhibkii dhacay haddii aynan u shaqaynin sida sax ah oo daacadnimada ah oo Ilaahay hortiisa ah macnaheedu waxa weeye dhibka aan ku jirno waa ku sii jireynaa muddooyin badan oo soo socda marka waxaan hadalkay ku soo gabagabeynayaa waxa loo baahan yahay inaan iscaafino kulligeen inaan iscaafino markaan iscaafino yaa cadaalad la heli marka cadaalad la helo yaa nabad la heli nabad marka la helana nolol baa daba socota madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta si buuxda raaligelin ugu bixiyay xasuuqii dawladda kacaanka ay u geysatay shacabka reer Soomaaliland asigoo sidoo kale dalbaday in la cafiyo dhammaan dawladda Soomaaliya waxa loo baahan yahay garawsha loo baahan yahay in wixii xumaa u dhacay la iska cafiyo wax alla wixii chapter madow ahaa oo taariikhdeena galay inaan saxno macnaheedu waxay tahay dhibkaas ka dhacay waqooyi inaan cudurdaar aan ka sameeyno inaan cudurdaar ka sameeyno inaan raali gelin ka sameeyno dadkaas waalaheena ah intii dhimatay iyo intii dhaawacantay aan raahno taariikh xun bay ahayd wixii dhacay waa waxaan soo marnay runtii wixii halkaas ka dhacayna wixii ka dambeeyay koonfur oo waqooyi ku duusha ma ahayn wax qabiil ku salaysan ma ahayn waxay ahayd system dawli ah oo markaas jiray anigoo madaxweynihii qaranka ah inaan cudurdaar ka sameeyo oo raaligelintaas aan gaarsiino walaalaheen reer waqooyi idinkan ila qaadataan dhanka kale dadkii iyaga naftooda qoryaha watay oo dagaalamayay iyaguna naftooda cudurdaar baa laga rabaa garawsho kale loo baahan yahay oo annaga dhexdeena ah yaa loo baahan yahay aniga aan iska bilaabo systemkeena qaabkeena dawliga ee cadaaladda ma fadhiyo dib badan baa laga sheegtaa waa la xantaa macnaheedu waxay tahay dad badan oo Soomaaliyeed yaa wax ka soo gaareen oo aaminsan si khaldan inuu xukun u dhacay xuquuqdoodii la duudsiiyay dadkaasi anu ma aqaano waxa amaanadaas loo dhiibtay garsoorayaasha iyaga Ilaahay hortagaya waqtigeeda markay timaado laakiin aniga madaxweyne ahaan cudurdaar yaan ka sameeynayaa waana ka raali gelinayaa dadkaas dibka runtii ka soo gaaray systemka dawliga ah garsoorayaasha naftigooda waxa la rabaa inay cudurdaar ka sameeyaan oo Ilaahay u noqdaan haday sixi karaan dib intee u noqdaan ay saxaan wixii khalad ah oo ka dhacay markaasi waxaan helaynaa nabad baan helaynaa marka Umul Khayr Awkar Ruxsa Radio Muqdisho.